السلام عليكم كسو دوادا عشركيني أفراد مدشينا كهذا الإنجليش أما يوتيوب channel كينا كهذا الإنجليش. Hello everyone, welcome back to كهذا الإنجليش. In today's lesson, we'll learn the months of the year in English. There are 12 months in a year. Learning the months will help you talk about birthdays, holidays, school, work, and important dates. Introduction below. Hello everyone. Salam qof kasta. Welcome back to Hadal English. Kusoo dhawow back macnaheedu waxa weeye dib weeye marka waxaad oran kartaa welcome back to Hadal English. Dib ugu soo dhawow ama kusoo dhawow waad iska oran kartaa ama dib ugu soo dhawow Hadal English. In today's lesson, casharkeena maanta, we will learn the months of the year in English. casharkeena maanta waxaynu ku baran doonaa bilaha sanadka ayaynu Ingiriisi ku baran doonaa. Months waa bilo. Month waa bil. S marka lagu darana waa bilo. Year sanad weeyaan. Lesson waa garanaysaa cashar weeyaan. Learn waa barasha. Learn. There are 12 months in a year. Sanadkii waxaa ku jira 12 bilood. There are 12 months in a year. Sanadkii waxaa ku jira 12 bilood. Ama sanadkii sagu haboone loo oran karaa waxa weeye sanadkii waxaa ku jira 12 bilood. Learning the months will help you talk about birthdays. barashada biluhu waa months waxay ka caawin doontaa inaad ka hadasho birthdays. Birth waa dhalasho. Birth ayaa inta hore loogu dhawaaqaa, inta kalena waa days. Marka waa birth iyo days oo la isu geeyay. Marka birthdays dhalashooyinka, holidays ayaamaha fasaxa, schoolka, work shaqada, and important dates. Hadii jeertida laguma dhawaaqa markaad haysato erey ku dhawaaqanaya ku bilaabmaya consonantigu ma garanaysaa af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa shaqal iyo shibane. Consonantigu waxa weeye shibanaha. shaqalku waa a o a I E O U kuwaasa shaqal la yiraahdo. Marka waxaad iska oran kartaa waxaad akhri kartaa important dates. Tiidu marka waa silent marka hadiyo jeer aad important xarafyada tiida ku dhamaada sida important oo kale uu xaraf shibana ku dhamaada ama erey shibana ku dhamaada uu ka dambeeyo. xarafyaan odhane markuu erey shibane ku bilaabma ka dambeeyo sida important oo dates ka dambeeysa. Dates waa ayaamaha. Date waa maalin ma noqon karto waqti weeyaan. Datesna waa waqtiyo. Okay, the months of the year. Imaka waxaan hadaba bilihii sanadka halkan ayagoo Ingiriisiya bay ku qorayeen, halkan ayagoo Soomaaliya ayay ku qorayeen. Soomaalida qaar basibay u yaqaanaan bilaha sanadka. Qaar dadkii Talyaanigu dhulkii Talyaanigu ka soo taliyay ama Talyaanigu gumaystay had iyo jeer af Talyaani baa bilaa lagaga dhawaaqaa. xaggan kale ee Ingiriis gumaystan had iyo jeer af Ingiriisi baa bilaa af Ingiriisi ayaa ay dadkaas bilaha ugu dhawaaqaan. Marka January waa bisha koowaad ee sanadka. January ay dadka qaar oran karaan, qaarna Janaayo. February ama Febraayo. March ama Marso. April or April. May ama Mayo. June, July,
July ama Luulyo. August ama Augusto. Augusto saas dadka qaar u qoraan. Augusto. Augusto. Okay. Augusto. September. October. November. Oh, November bayada Soomaalida rolling r tayada wala adkeynay November. December. Imarka waxaynu gudbaynaa haddaba pronunciation practice. wanigi maalinta hore idin sheegayay pronunciationka ereyga hadduu dheer yahay waa la kala jajabiyaa. ereyga pronunciation macnihiisu waa ku dhawaaqid. practice ben isagana kala jabinayna practice-na waxa weeye inaad wax ku celceliso. marka waa pronunciation shantii sida tiradii shantahayd oo kale marka intaas raacdo loogu dhawaaqa. pronunciation isku day inaad ku dhawaaqdo. ereygani waa practice inta hore waa prac, inta dambana waa tis. practice. Repeat after me. Repeat waa ku celin. haddaan ku rahdo after waa kadib, me waa aniga gan hadlaya. Repeat after me haddaan ku rahdo waa iga daba dheh ama iga daba celi. Okay, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, let me do one more time. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, inaad fahanto aad ayaan rajeynaya. isku dayna inaad si sax ugu dhawaaqdo. Okay, useful questions. What month is it? waa bishee. It's June. What month is yesterday? Oh, what month is your birthday? What month is your birthday? dhalashadaad waa bishee. My birthday is in December. My birthday is in December. dhalashadeedu waa December. When were you born? When were you born? Born waxa weeyaan dhalasho. When were you born? waa ficil, waa dhalasho. When were you born? I was born in March. I was born in March. I was born in March. Example sentences. jumlada ama hawraara tusaale ah. School starts in September. Schoolku wuxuu bilaabmaa September, bisha September. My birthday is in June. dhalashadaydu waa June. Ramadan may be in March this year. Ramadaan waxay soo geli kartaa. Ramadaan waxa weeyaan baa laga yaabaa March sanadkan. December is the last month of the year. December waxa weeye bisha sanadka ugu dambaysa. January is the first month of the year. January waxa weeye bisha ugu horeysa sanadka. Conversation wada sheekaysi. Conversation. saasaa loo kala jijibiya hadduu ereygu dheer iyo dhawaaqa socdagii. markastaad aragto intaa waxaa loogu dhawaaqaa shan. Okay, shan. Conversation. Ahmed, what month is it? It's June. When is Amina? Ahmed baa odhanaya what month is it? Amina waxaa odhanaysaa it's June. waa bishii June. Ahmed waxaa odhanaya waa bishee. Amina waxaa odhanaysaa waa bishii June. waa June.
When is your birthday? dhalashadaadu waa goorma? Axmed baa odhanaya. Aamina ayaa odhanaysa my birthday is in August. Axmed ayaa odhanaya that is great. taas aad ayay fiicantay. That is great. taas way fiicantay. Okay, new vocabulary. New ama new. Tan newna waad odhan kartaa. Newna waad odhan kartaa. New vocabulary. Vocabulary. Okay, saasaa loogu dhawaaqaa. Month waa bil. Year waa sanad. Birthday waa dhalasho. First waa ugu horeyn. First waa horeyn ama koobaad. Last ugu dambeyn. Date waa waqti. Okay, aad iyo aad ayaa mahadsantiin. casharkeena maanta intaasaynu kusoo koobaynaa. waxaan rajeynayaa casharkani inuu aqoontaada Ingiriishka kobciyay. And thank you very much and have a great day.